أنا يقول حران حرجينين دمانتي في عنتين ما تشيء كان يدي هيا شيء كذا عن يدي هيو وشيء كذا قرح بدن ليا بدن أنا أقير بدن مركا قار مركا حشرتي شيء كذا حكر على هرتا بدن كسوريا قبل كم إذا قبل هذا سوريا تولوين كيس أي كرعضي وحين كنا عضينين لو يقانو أيمن يوسف هي قبل لو مقعابو أمل الشعار marka Ayman Yusuf iyo Amal Shacaar wax iska hayn dad reer tuula Ayman Yusuf wuxuu ku shaqeysan jiray xirfadda dawaarnimada ama harqaanka isagoo xirfadda ku shaqeysta ayaa xadhacday wiil dhalinyaro iska markaas ayaa wuxuu jeclaaday gabadhan lagu magacaabo Amal Shacaar markuu jeclaaday uu bandhigtay jacaylkiisii isla markiiba way isguursadeen guurkoodii kadib waxay ku noolaadeen nolol aad u qurux badan farxad badan iska basiida iska easy nolol yaroo iska wanaagsan iskaga noolaayeen kadib noloshooda isaguna markaa wuxuu ku shaqeysan jiray dawaarkaas waxa looga iman jiray meelaha fogfog magaalada gudaheeda ayaa looga keenan jiray dalabiyaad kuwaas oo tuli jiray noloshoodana ku dabari jiray waqti badan kadib markaa Amal reerkooda waxa iska ayaan reer iska waxa iska ahaayeen dadka dabaqada hoose iskaga jira laftarkiisa Ayman Yusufna sidaas leeg reerkoodu waxa reer dabaqada hoose iskaga jira mudadii markii ay qabeen aduu sanadaaya waxa Ilaahay ku arsaaqay gabadhis markay u dhalatay ninkii Ayman Yusuf jacayl uu qaba xaaskiisa darteed inantiisina wuxuu ugu magac daray hooyadeed wuxuuna u bixiyay Amal markii uu inantiisa Amal bixiyay inantii yareed way iska kortay markii marayso meelahaas adigu sanad nasiib xumo xadintay aabaheed Ayman Yusuf oo dhintay markii uu dhintay gabadhii Amal Shacaar ahayd iyo inantii yareed Amal Ayman Yusuf waxa soo food saarteen nolol aad u adag maadaama ay waayeen garabkii noloshooda qofkii dabaray noloshooda gabadhan Amal Shacaarna waxa iska ahayd gabadh aan waxba dhagan xirfadna aan lahayn iska guri joog bay iska ahayd inta badan waxyaabaha ay qaban jirtay waxa kamid ahaa inay caawiso ninkeeda waqtiga uu talabiyaadku ay ku badan yihiin oo kale isaguna wuxuu bari jiray xirfadan dawaarnimada bari jiray iyadoo ay ka dhaxashay markaa ninkeeda darteed bay go'aan ku gaadheen ku shaqaysato waxay halkii ka bilowday noloshii dawaarka iyo qalabkii uu ninkeedu ku shaqayn jiray bay soo qaadatay maadaama maanta hadaba ay weyday xaajigeedii iyo qofkii nolosheeda qayb dhan hayay oo dardar kamid ah dardaaradii nolosheeda oo meesha ka baxay waxay ka guureen guriga degnaayeen waami awoodeen iska bixiyaan wayna ogaayeen labadooda reerka uu Ayman ka soo jeeday iyo reerkay Amal ka soo jeeday labadooda inaan waxba ku caawin kareyn waxay soo degeen guri ka yar meeshii ay degnaan jireen dadna meel kamid ah bay hagaajisatay Amal waxay dhigatay meel yar oo soo dhaweynay samaysatay waxay dhigatay dawaarkeedii halkaas markaa dadka ay ugu toli jirtay maryaha waxay bilowday markaa noloshii bartaa inay ka sii dhisto gabadheedii yareed waxbarasho ku dartay ilaa gabadhii ay heer waxbarasho meer sare ka gaadhay Amal way waday markaa shaqadeedii qof kasta oo soo gala Amal wuxuu arki jiray iyadoo kursiga ku fadhida wuxuu intoleysa markii sanadkii ugu dambeeyay ay mariso Amal Ayman waxbarashadii ayaa waxa dhacday in Amal Shacaar xanuunsato xanuunkeedii markii dhakhtar la geeyay waxa lagu sheegay inuu beerka xanuun ka hayo walibana xanuunka ka haya uu yahay xanuun khatar ah keeni kara beerku inuu si complete ama si dhameystiran u fadhiisto oo u shaqeyn waayo waxa la soo qoray marka xanuunka hayay waxa loo yaqaanaa cirrhosis baa loo yaqaanaa terminology caafimaadka waxa weeyaan inay scars ama wax ka soo baxaan burooyin yar ka soo baxaan beerka burooyinkaas oo diidaya inuu beerku sidii loogu talagalay u shaqeeyo waxa la soo qoray dawooyin baar fuula dawooyin aad u awood badan si beerka ugu sii hayaan ama ay ugu sii qasbaan inuu shaqadiisa qabsado muddo far badan bay ilaa intii sanawiga ay ka baxaysay ama ay dhameysay jaamacadeedii Amal Shacaar waxay ku sii waday shaqadii waxayna ku shaqeynaysaa dawooyinkaas laakiin markii ay inanteedu dhameysay waxbarashadii waxay aragtay inaan maanta kadib hooyadeed waxba qaban karin xanuunkeeduna waa sii badanayo hooyadeed markaa waxay ku tiraaday
hooyo muddo fara badan baa anigay soo korisay waxba ay soo bartay timekii aan anigu ku fariisin lahaa anigu aan kula siin lahaa noo shaqayn lahaa la gaaray marka waxaan u baahanahay inaan shaqo raadsado adigana inaan caafimaad kula raadiyo marka meesha degnaa waa meel iska tuuladana lagama helayo dhakhaatiir fiican iyaduna kama helayso shaqo u qalansa wixii ay soo baratay deedna waxay usoo guureen Dimashq bay usoo guureen caasimadda usoo guureen Dimashq markay yimaadeen xoogaa kaydoo lacag bay haysteen lacagtii meel yar ku karaysteen hooyadina ay dawo ugu raadin jirtay ama intii ay Dimashq joogtay waqti xaadirkan meel walba way martay dukaan way martay meherad way martay supermarket way martay xarun dawladeed way martay meel kasta way martay laakiinse may helin wax u qalma ama shaqo la siiyo bayna oreeri shaqada way weeday kadib shaqadii markii ay weeday ay muddo badan soo wareegtay timekii waxa dhacay kaydkoodii yara haysteen inuu ka dhamaaday maalin walba iyadoo warwarsan hooyadii xanuunsan jirtay waxa xanuunsan jirtay toddobaad marmar bay iyadoo iska taagan dhici jirtay inaad heer waa qaylin jirtay markasta waxay tagi jirtay waxay dhihi jirtay ila qaada waa la qaban jiray taksiga la saar jiray dadka jaarka soo gurman jiray xaaladeedu sayd bay ahayd waxa dhacday dadna maalmaha kamid ka jiray nin yaroo abcasaam la dhihi jiray oday yaroo adigu iska 50aad ilaa 50aadka 60aadka meelahaas dadna wuxuu ahaan jiray marka dhismuhu la degnaa laakiin wuxuu ilaalin jiray beer buu ilaalin jiray shirkad leedahay mar walba waxa arki jiray inaan yar ooyisa waxa arki jiray gabadh reerkan oo laga qaylinayo waxa arki jiray inaan yar hooyadeeda dhakhtar kula ordaysa dadna marka macrifo guud ama barasho guud ayaa baa dhexmartay dadna waxa dhacday iyagoo isqaana oo si guud isku yaqaan oo xaaladeeda ka wareysto ayaa maalmaha kamid ah wuxuu arkay marka Ayman Yuusuf ooyisa uu yimid adeer maxaa kugu dhacay waxay ku tiri inay yar qurux badan baa tahay horta wuxuu ku maxaa kugu dhacay waxay tiri hooyadii waxa xanuunsan saadan dhakhtarka imiday maalinta marka hooyadii baa inta sir jooga ka dhacday oo inaan sir dhakhtarka ula carartay baa dhakhtarku wuxuu ku yiri hooyada xaaladeedu waxay maraysaa meel aan laga soo laaban karin dhakhtarkana kama saari kartid buu ku yiri oreeri dadna taasay dhooyisi odagii baa uga sheekaysay waxay ku tiri hooyadii saasaa la yiri dhakhtarku wuxuu guri ma qaadi kartid marka waxa sameeyay ma garanayo aniga lacag ma haysto hooyadii ku daweeyay dhakhtarka lacag bay garba dawooyin waxaan u siiyo ma hayo shaqana ma haysto meel walba aan soo maray waxa ku raadinay inay mutacaalimada baa tahay qurux badan shaqo soo weeyday ma hayo bay tiri shaqo meel walba aan soo maray adeer wuxuu ku yiri adeer aan waxaan ka shaqeeyaa ku beer baan ilaaliyo ka ahay marka bal beertaas baan dadka macnaha iskale shirkad bay ku leeyihiin wadanka walibana qaybo kala duwan oo shirkad ah ay leeyihiin kuwaas aan shaqo ku soo weydiinaya adeer isug hayabu ku yiri hayabeena tira ku jiri wayna faraxday maalintii ku xigtay odagii abcasaam wuxuu u tagay shirkadii ninkii meel walibana qaybta shaqaalaha madaxda waa HR ku tagay sheekadii Nanteer buu soo bandhigay wuxuu ku ri Nanteer waa neero wax baratay xaaladeeduna aad way xun tahay hooyadii baa xanuunsanaysa dhakhtar kaga jirta waxay ku daweysan mahayso waxaan ka codsanayaa inaad tijaabisid Nanteer oo shaqo siisid hadii ku cajiibso wareer waad shaqadooda waad si wadan kartaa laakiin aad ka helin waa inta qofteed shaqaysanayaan ahayn waad iska diri kartaa laakiin number 1 waa inaad tijaabisid Nanteer oo wax la qabatid waayay buu ku ri ninkii berito la subax insha Allah waraaqaha soo qaado ku dheh imoo xafiiska uu kaalay abcasaam soo noqday amal buu ugu bashaareeyay wuxuu ku ri ninka HR-ka berito loo tagay interview baad leedahay insha Allah interviewgan insha Allah inaad ka soo dhalaali doontid oo aad barteeda dhigi doontid baan rajeynayaa inaad tirado way faraxday ma sha Allah hooyadeed bay dhakhtarka ugu tagtay way bashaarisay hooyadeedna waa faraxday inaad tirado subaxii time iska ma luminin xilli horeba waxay tagtay xafiiskii isla markiiba interviewgii baa laga qaaday ma sha Allah inay qurux badan shaqadeeda macnaha hadalkeeda codkarnimadeeda sida wax hadlayso kaale arag ay tahay baheed ninkii HR-ka aad buu ugu qancay wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay gabadh aan ka shaqaaleysiino qaybta xisaabaadka waxay tiraan xisaabaadka waxa ka aqaana businesskana waan soo bartay waxa u baahanaynaa aniga aan chance-ka la dhaafin waayay baalguuri isla subaxa shaqada soo gal subaxii bay hooyadii beertu tagtay soo bishaareysay ma sha Allah islaan way si farxday inantii yareed shaqay bilowday shaqadii ba waxay u dhaxan jirtay marka shaqadii marka subaxii gashay subaxa marka shaqada gasho ganiga dama hooyadii dhakhtarka ku hayn jirtay adoo hooyadeed maalmo kadib
wayba iska yar ladnaatay dhakhtarka waa laga saaray guriga la keenay inantii yar shaqadii bay iska wadatay maasha allah sanad baa ugu buuxsamay marka meeshii ay ka shaqeynaysay markay shaqadii soo dhamay markay sanadkii buuxsamay waxa dhacday waxa howlgab noqday ninkii meesha ka shaqeyn jiray aad iyo aad buu la dhacay inantii yar shaqadeeda laakiin ugu dambeyn howlgab buu noqday positionkiina iyada lagu bedelay madax waxa looga dhigay qaybta xisaabaadka amal marka waxaa jirtay sanadle inuu ninka managerka maaha ninka shirkada CEO da ka ah iska leh inuu sanadle ugu imaato dee shaqaalaha wuxuu wareysan jiray fikrado ayuu ka qaadan jiray ama shaqada soo socoto uu fiirin jiray ama mawduuca laga hadli jiray marka maalin buu iman jiray maalinta markuu imaado shir baa la geli jiray shirkii marka xigaadhay sanadkii markii shirka la geliyay waxaa la iskugu yimiday xafiiska hoolkii meetingka marka amal shacaar maaha sorry amal ayman waa qofka cusub markaan halkan shirka way ku cusbeed waa sanadkii ugu horeeyay ninka iskale shirkadana waxaa loo yaqaanay Cimraan baa la dhihi jiray oday aad isku weyn isagoo iska ahaa Cimraan baa la dhihi jiray shirkii baa horta la galay marka maalinta fikradda laga hadlayay waxay ahayd marketingka waxa la rabay marketingka sidii loo horumarin lahaa in laga wada hadlo markii uu Cimraan soo dhigay aragtidii laga hadlayay marka inta badan wuxuu la kulmi jiray isagu madaxda qof kasta ra'yigiisa la weydiiyay waxay soo gaadhay markii Amal Ayman Yuusuf ay ka hadlayay pointkeedii markii bilowbatay hadalkii ninkii Cimraan ahaa dareen baa galay saasuu sug yaa tahay adigu ku yiri inantii weydiiyay inantii yareed waxay tiri aniga Amal baa la dhahdaa waxaan ahay madaxa qaybta xisaabaadka wuu aamusay wuxuu kusoo jeestay markaa ninkii HR kusoo jeestay ama qofkii ninkii madaxda u ahaa qaybta shaqaaleysiinta waaw ku yiri riyaa gabadh qurux badan baad uga dhigtay shirkadii qaybta xisaabaadka adigu hadal kaftan buu ku yiri ninkii uu naxay wuxuu ku yiri ma mudane gabadha waa gabadh wanaagsan dadka shaqaalaha waa weydiin kartaa aad baa looga mabsuuday shaqadeeda xataa ninkii shirkadda qayb markii hore madaxda ka ahaa aad buu uga mabsuuday maasha allah adna tijaabin doontaa waayahay buu ku yiri gabadha yar biska wada ku yiri shaqadeedii macnaha hadalkeedii sidan bayn geeli karnaa sidan bayn samayn karnaa talaabadan baan qaadi karnaa waxaan baan bedeli karnaa fikrado fiican bay soo gudbisay marka Cimraan aad buu la dhacay aragtiyaheedii waxay soo gudbinaysay shirkii aad u dhamaaday markuu dhamaaday shaqaalihii kale oo dhan uu fasaxay Amal buu ku yiri markaa joog markii arintaas dhacday shaqaalu waa la is egaagay way baxeen markaa ayagu shaqaalihii kale ayadaa soo hadhay wuxuu ku yiri nafsadaada macnaha macluumaadiga sii wuxuu weydiiyey halkaad wax kusoo baratay magaceeda wuxuu weydiiyey maa lagu qabaa iyadu way sharaxday aniga Amal baa la dhahdaa hooyadii baan halkan la degnahay aabahay dhintay waxbarashada halkaas ka soo baxay jaamacadda noocaas ka soo qalinjibiyay shahaadooyinka noocaas haystaa already adu macluumaad guud bay nafsadeeda ka bixisay wuxuu ku maa lagu qabaa may bay tiri ordwaay ku iska soo baxday markii soo baxday banaanka timiday dhamaan shaqaalihii meesha kala soo baxay iyo kuwii meesha hore u sii joogay ka shaqeynayay aan madaxda ka mid ahayn baa soo ururay xal weydiiyay maxaa dhacay muxuu ku reebay su'aalo noocaas ah weydiiyay iyadu waxba uma yarkiinin waxay tiraaday macluumaad naftaada si muxuu kala weydiiyay wuxuu weydiiyay maa lagu qabaa waa la qosqoslay way yaabtay inantii yareed maxaa qaldan bay tiri talow shaki baa markaa inantii yareed galay dadkii baa ku tiri maxaa jira waxay ku raadeen isku badnow aduu shaqadeeda iska bilaabantay way sii shaqanaysay muddo waxa dhacday maalin kale dhakhtarka in hooyada hadana xanuusto dhakhtarka la dhigay dhakhtarka markii la dhigay waxa u bilaabmaday warwar hor leh waxa lagu dhahday hooyada waxba lagama qaban karo wadanka gudihiisa aad bay inaan jiro naxday aad bay already waxa lagu yiri hooyada beerkeeda u fadhiistay ilaa beer loo beero oo inta dhakhtar aan Yurub la geeyo dhakhtar loogu soo beero beer kale cusub loogu soo beero hooyada ma noolaanayso inaan jirid
oohin bay bilowday gurub bay bilowday qayla bilowday dhakhtarkii bay ku tiri dhakhtar aan maxay ku qaadan kartaa camaliyadaas ama qaliinka hooyadii lagu sameeyay lacag intee leeg xukuur ugu yaraa $200,000 baa ka galaysa deedna waxay tiri halkeen ka keenaya aniga haddaan xataa nolosheeda dhan hadaa is iibiyo $200,000 meelaan ka keeno ma haysto markaas si ii naxariiso macnaha wuxuu ku dhan waxba gacanta kuma haysto laakiin waxa kuu sheegay anigu hadaa maanta halka ka baxdid oo hooyada Yurub qaadid lacagta kaaga bixi kartaa inta inay tahay totalkeeda deedna waxa dhacday nan jireed waxay tiri maxaan sameeyaa dariiqo kale ii raadi siyaasad wax kale oo kaga bixi karo sidan oo ka fudud wadi waqti xaaladeyda hadun baa shaqo helay hadun bay nolosheeda toostay macnaha ma garan karo ma karayo meelaan ka keen lacagtaas ma haysto wuxuu ku yiri adeer iska tag buu ku yiri maanta anigu nuugay xaaladaada maanta iska tag waxba kuma qaban karo tan adina tirad maanta iska soo weetay maanta ku xigta dhakhtarkiiba ku noqoto waxay ku tiri dhakhtar caala dhawaan soo fikirayay waxaan macnaha ka qaban karo hawshan ama lacagtan meelaan ka keeni kara habeeraatee ma jirto oo ku bariya si kale yiraahdo dariiq kale yiraahdo please wala yadaamay sorry ka waxay salaadii bay gaadhay oo soo noqday waxay inoo mareysay inantii yareedo lagu yiri hooyada dhulka waxba wadanka waxba laga ma qaban karo haduu calaayad xaal habeen bay soo fikiraysay maalintii dab dhakhtarkii ku soo laabatay dhakhtarkii waxa uu sheegtay inaanay wali aan ka garanaynin meel lacagtaas ka keento ayna u baahan tahay in la raadiyo dariiq kale hooyada lagu daweyn karo ugu dambeyn dhakhtarkii wuxuu ku yiri amalay adeer waxaad sameyn kartaa buu ku yiri dariiq kale waxaan ku hayaa in hooyada Hindiya la geeyo Hindiya marka la geeyo in aadu lacag ahaan waxay kugu gaarsaa ilaa $60,000 ilaa $70,000 in hooyada marka Hindiya la geeynayo oo aniga dhakhtar la xiriiraya dhakhtarkaas marka discount ku sameeynaya isagana qaliinka ku fulin doona insha Allah inantii yareed dabcan wali ma farxsana laakiin hadana $200,000 wax ka jaban bay heshay oo waliba aad iyo aad uga jaban oo aan dhihi karno boqolkiiba 80 ama 70 ka jaban yahay marka waxa ku tilwaayahay taa waxa ka fikirtaa halkii lacagtan halkii ka keeni lahayd deedna waxa dhacday way fikirtay waxay tiri maalintii shirka la galay wadigii bartay ninka shirkadaad ka shaqaysay iskale waa kii ka helay macnaha ka shaqaale ahaan marka hadad malaha weydiisatid amaah oo kale ama deyn oo ku siin kara deedna waxay kusoo tashatay isaga kusoo tashatay inay hor dhigto oo ay macnaha ay arinta kala tashato ay go'aan ku gaadhay then way timiday markii shirkadda timiday maalintii ay u timiday xogaynta ninkan shirkadda iskale waxa lagu raaday time sug marka waxa lagu yiri fadhiiso oo yar sug baa marka lagu yiri waan soo sheegay way ku tirinantii xogayn tahayd marka way sugaysaa waqtigiina lagu dheeraaday waxaan ku daray qaybta kale aan ku bilaabi doonaa insha Allah waxa lagu raaday jawaabta la siiyo